Waxaan wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah muuqaaladeeni taxanaha. Muuqaalka caawa wuxuu gaar u yahay reer Sweden, laakiin waan hubaayo Soomaalidu waa uliya diirkeeda. La wadaag saaxiibadaada, qoyskaaga iyo qaraabadaada ku nool Sweden. Waxaa laga yaabaa muuqaalku si uu u anfaco. Shabakadan Hita.se ee shaashada kaaga muuqata ayuu muuqaalku ku saabsan yahay. Shabakada Hita.se waxay ka mid tahay shabakadaha ugu waaweyn ee kaydiya xogta dadweynaha iyo shirkadaha ee ka howlgala dalkan Sweden. Shabakadan qaybteeda baaritaanka daawado hadduu qof uu ku qoro magacaaga oo saddexan waxa uu soo baxaysa qofkaas xog muhiim ah oo adiga kugu saabsan. Tusaale qofkaas wuxuu ka dhex daalacan karaa shabakadan si fudud uga dhex daalacan karaa dalka Sweden magaalada aad ka degan tahay, xaafadda aad ka degan tahay magaaladaas, guriga aad degan tahay numberkiisa, cidda guriga kuula nool ee kugu wehelisa, telephone numberkaaga haddii uu ku diiwaan gashan yahay. Xogta muhiimka ayaa qofkaasi si fudud ku heli karaa. In xogtaas si fudud lagu helaa qarnigan aynu joognaa qatarteeda ay leedahay. Hase yeeshee shirkadahani waxay u haystaan ruqsad inay daabacaan xogta dadweynaha iyo shirkadaha oo wax caadi ka ah dalkan Sweden iyo meelo badan oo Yurub ka mid ah. Laakiin muuqaalkan waxaan kugu tusayaa sida aad uga tiri lahayd gebi ahaanba xogtaada, oo haddii uu qof ka baaro shirkadan Hita.se aan laga yaabin inuu ka soo helo, ayaan muuqaalka kugu tusayaa. Adiga go'aan kale dabcan way jiraan faa'iidooyin oo kugu jira inaad shirkadan ka soo muuqato. Marka khasaariye faa'iidadeeda kama hadlayno maanta, laakiin waxaan kugu tusayaa qaabka aad gebi ahaanba uga tirtiri lahayd xogtaada shirkadan. Adiga go'aan kale haddaad rabto inaad sii joogto shirkada ka muuqato oo markii qof ka raadiyo uu ka helayo, iyo haddii aad rabto gebi ahaanba inaan laga arkin shirkadan. Muuqaalka ayaad ku daawanaysaa sida aad uga tiri lahayd magacaaga iyo macluumaadkaaga shirkadan. La soco muuqaalka. Ugu horeyn waxaad booqanaysaa shabakada Hita.se, kadibna meesha u hooseysa shabakada tagaysaa. Website-ka halka u hooseysa tagaysaa waxa ka raadinaysaa meesha ku qoran tahay nala soo xiriir, contact us, meeshan weeye. waa gujinaysaa nala soo xiriir meesha ku qoran tahay. Kadibna waxa kuu soo baxaya saddexdan alternative ka u sareeya ka dooranaysaa maadaama aad tahay qof doonaya inuu xogtiisa meesha ka tiro. Kadibna saddexdan kale ayaa kuu soo baxaya. Tan dhexe ayaynu ka dooraneynaa oo la micno ah waxaan doonayaa inaan xogteeda ka tiro. Waa shabakadii. Kadibna laba alternative ayaa kuu soo baxaya oo tasare tahay qayb ka mid ah qarin kartaa xogtaada sida telephone numberkaaga iyo wixii la mid ah. Tanna waa gebi ahaanba xogteeda ka tirtir meeshan. Taa ayaynu dooraneynaa. Waxa kuu soo baxaya meesha wax laga raadiyo. Kadibna magacaaga oo saddexan ayaad ku qoraysaa. Marka magacaaga oo saddexan ku qorto, bangi ID ayaad ku saxeexaysaa. Calaamadda cagaarka craft taabanaysaa oo ah xaqiiji inaad ka tirayso meeshan xogtaada. Kadibna alternative-yadan ayaa kuu soo baxaya lagugu weydiinaya sababta uga tirayso. Midkii adiga ku quseeyaa ka dooranaysaa. Badanaa ta u sareeya la doortaa. Ta u sareeya aynu ka dooranay. Kadibna waxaynu oranaynaa forshit way isku dhamaatay. Sida ayaa xogtaada uga tirtay shabakada Hita.se.